xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaridka ee wadani Haldoor Barkhad Jaamac Batuun oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay ka hadlay cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu ka hadlay xukun ay dhawaan maxkamadda degmada magaalada Hargeysa ay ku riday 2 nin oo xaday ilmo yar. Sidoo kale waxa uu ka hadlay xadhiga dhawaan xukuumadda Soomaaliland u geysatay agaasimihii telefishinka Universal ee Soomaaliland, isagoona xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliso cadaaladda iyo dhanka kale waxa uu fariin u diray mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland Haldoor Barkhad Jaamac Batuun isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri runtii leexatay isuna bedeshay xiriirtii xurriyadda aadamaha Ilaahay abuuray xurmay leeyihiin xuquuqay leeyihiin dastuurka dalkuna wuxuu u damaanad qaaday muwaadin kaste oo reer Soomaaliland xirfadu doonaha lahaado ama suxufiyiintiina ha ahaato ama ganacsato ha ahaato ama culimo ha ahaato ama siyaasiyiin ha ahaatee in xaqooda asaasiga sharcigu ilaalinayo. waxa dhacday muddadii xukuumaddan cusub ay timid 3 bilood iyo barka tacaddigii ugu badnaa ee xadhigii ugu badnaa ee muwaadiniinta Soomaaliland ku dhacay inuu bilowday. madaxweynaha hadda talada dalka haya wuxuu ku ololeynayay waqtigii campaign-ka lagu jiray waxa sareynaya oo mudnaanta yeelanaya waa sharciga. waxa muddada 3 bilood la xidhay ku dhawaad dhowr iyo 30 qof oo maxkamadaha dalka sidii kolba rumaan loo geenayay barkoodna lagu ilaaway oo bahdil badan uu ku dhacay ama suxufiyiin ahaato ama dad qoraayaha ahaadaan ama dad abwaanaha ahaadaan ama dad culimo ahaadaan ama dad ganacsato ah oo dhibaato ku dhacday ka dida ahaadaan ama curyaamiin cabatay ahaadaan in xukunno fool xun ay dhaceen. taasi waxay daliil u tahay garsoorku waa gidaarka dulmiga muwaadiniintu ay ka galaan. markasta oo qofka muwaadinka dulmi ku dhaco meesha loo irkanaya waa garsoorka iyo cadaaladda kafadiyo miisaanka in ummadda loogu xaq sooraa ay tahay. waxa cad in garsoorkii la marin habaabiyay, in garsoorku uu noqday bahal la galeen, in garsoorku uu noqday meel lagu miirto dhiigga muwaadiniinta aqlan wa sharcan wax la aqbali karayna maaha. waad ogeydeen curyaamiin baa waxa lagu xukumay wasiiraad ka hor booqdeen 3 sanadood oo xadhigay 3 milyan horaan uga adan. waxa dhacday hooyo ilmaheedii lahayd ayaa 2 sano qofkii ka xaday ee xatooyada ku sameeyay. hooyadaasi markay saxaafadii noo waramaysay waxay tiri Soomaaliya meel kasta lug baan dhigay, kharash baa iga baxay, ilmahayga u baholiyoobay. markii aan helay sharcigii la hor keenayna 2 sano la igu xukumay. diinna waxa lagu xukumay kuwa qaatay 4 sano iyo 3 sano. cadaaladda noocaas halkay ka timid? goormuu xayawaanku ka xurmo batay aadamaha? goormay muwaadiniinta suxufiyiinta qarankiina u adeegaya oo ka xuquuq badanaya wasiirada cashuurta idinka su'aalaha isweydiin mudan? sharcigu ciddu ilaalinaya waa dadka danyarta. sharcigu ciddu u adeegaya waxa weeyaan waa dadka nugul ee maaha ka lacagta haysta iyo ka xilka haya. kuwaas waxay tahay inuu sharcigu ummadda ka qabto markay khaldamaya. xirlaaliyaha kiiska haya markii la weydiiyay la yiri maxaad 2 sano loogu xukumayna wuxuu yiri sharci baan u weyn. oo marka hore qofka aad soo xidaysay aad eedeysanaha ka dhigaysay bilisku ku soo qabanayo sharciga ku fasaxay inaad soo qabatay eedeysana uu ku yahay marka maxkamadda sarreenteenuna waa ballanteennuna waa sarreenta sharciga. kufsi sharci baa dalka ka dhacay. waxaan ugu baaqaynaa golaha baarlamaanka guddi hoosaadkiisa xuquuqul aadamuhu Ahmed Baasha Ali Shire, telefishinka SBS.